Ma rumaysan kartaa in wiil yar oo ka soo jeeda xaafadaha danta yar ee Lyon uu maalin noqdo mid ka mid ah weeraryahanadii ugu waaweynaa taariikhda kubadda cagta? Karim Benzema wuxuu la kulmay caqabado badan, balse dadaal, dulqaad iyo hami aan dhammaan ayaa u horseeday inuu gaaro heerkii ugu sarreeyay ee ciyaaraha, kuna guuleysto Ballon d'Or. Haddaba, waa maxay sheekada dhabta ah ee ka dambeysa guushiisa? Daawo muuqaalkan ilaa dhammaadka si aad u ogaato safarkiisii cajiibka ahaa. Hase yeeshee, is-xasuusin, ha ilaawin inaad like saarto muuqaalka, channelkana subscribe dhahdo. Aanu sii gudagalno muuqaalkeena. Asalka qoyskiisa iyo halkii uu ku soo koray. Karim Benzema wuxuu dhashay 19 Diseembar 1987 magaalada Lyon ee dalka Faransiiska. Inkastoo uu ku dhashay Faransiiska, haddana xididadiisa waxay ka soo jeedaan dalka Algeria oo ah dalka uu qoyskiisu asal ahaan ka yimid. Sheekada qoyskiisu waxay dib ugu laabanaysaa sanadihii 1950-meeyadii, markaas oo awowgiis Hafid Benzema uu ka soo guuray tuulada Takshert ee Algeria, isaga oo u soo hayaamay magaalada Lyon si uu u helo nolol ka wanaagsan tii uu ka soo tagay. Karim Benzema wuxuu ku soo barbaaray qoys weyn oo ka koobnaa 9 carruur ah. Gurigooda waxaa ka jirtay isjecel, wadajir iyo is-caawin, kuwaas oo noqday tiirarkii lagu soo koriyay. Waalidkiis Hafid iyo Wahida Benzema waxay si weyn ugu dadaaleen inay carruurtooda ku barbaariyaan anshax wanaagsan, ixtiraam iyo shaqo adag. Waxay rumaysnaayeen in guusha dhabta ahi aysan ku imaan hibo oo kaliya, balse ay ku timaado edeb, dulqaad iyo dadaal joogto ah. Qiyamkaas uu qoyskiisu ku beeray ayaa noqday saldhiggii uu Karim Benzema ka dhisay mustaqbalkiisa, kana caawiyay inuu noqdo mid ka mid ah weeraryahanadii ugu waaweynaa ee soo mara taariikhda kubadda cagta. Nolosha xaafaddii adkayd ee Karim Benzema ku soo barbaaray. Karim Benzema wuxuu ku soo barbaaray xaafadda Bron-Trylon oo ku taala bariga magaalada Lyon ee dalka Faransiiska. Xilligaas, xaafaddan waxaa lagu yaqaanay caqabado badan oo ay ka mid ahaayeen saboolnimo, rabshado iyo dambiyo, taasoo nolosha dhalinyarada halkaas ku nool ka dhigtay mid aan sahlanayn. Dhalinyaro badan oo deegaankaas ku noolaa waxay ku dhammaan jireen waddooyin qaldan, balse Karim Benzema wuxuu doortay jid gabi ahaanba ka duwan. Halkii uu waqtigiisa ku lumin lahaa waxyaabo aan faa'iido lahayn, wuxuu saacadihiisa ku qaadan jiray garoomada yaryar ee xaafadda, isagoo si joogto ah u horumarinayay xirfadiisa kubadda cagta. Kubaddu waxay u ahayd wax ka badan ciyaar, waxay ahayd riyo, rajo iyo waddadii uu uga bixi lahaa duruufaha adkaa ee ku hareereysnaa. Mar kasta oo uu garoonka galo, wuxuu rumaysnaa in dadaalkiisu uu maalin u horseedi doono guul weyn. Taageerada joogtada ah ee qoyskiisa iyo jacaylka qotada dheer ee uu u qabay kubadda cagta ayaa ka caawiyay inuu ka fogaado dhibaatooyinkii hareeyay xaafaddiisa. Go'aankaas adag ayaa noqday tallaabadii ugu horreysay ee u horseeday in mustaqbalka ka mid noqdo weeraryahanada ugu waaweyn taariikhda kubadda cagta. Caqabadihii miisaanka jirkiisa iyo dabeecaddiisii is-hoosaysiinta. Markii uu yaraa, Karim Benzema wuxuu la kulmay caqabado aysan dad badani maanta ogeyn. Wuxuu lahaa miisaan ka badan inta caadiga u ahayd da'diisa, taas oo mararka qaar sabab u noqon jirtay in carruurta kale ay ku jeesjeesaan ama kaftan adag kula kacaan. Laakiin Karim Benzema ma uusan ogolaan in hadalladaas ay niyaddiisa jabiyaan. Wuxuu ahaa wiil deggan, xishood badan oo aan hadal badan jeclayn. Halkii uu ereyo ku jawaabi lahaa, wuxuu doortay in kubaddiisu noqoto codkiisa. Mar kasta oo uu garoonka galo, xirfadiisa ayaa ka hadli jirtay halkii uu isagu hadli lahaa. Aabihiis wuxuu door weyn ka qaatay horumarkiisa. Wuxuu si dhow ula socday nafaqadiisa, jimicsigiisa iyo tababarkiisa maalinlaha ah, isagoo ku dhiirigelin jiray inuu dhimo miisaanka, isla markaana jir ahaan iyo maskax ahaanba isu diyaariyo mustaqbalka. Dadaalkaas joogtada ah ayaa si tartiib tartiib ah
u bedelay nolosha Karim Benzema. Miisaankii dheeraadka ahaa wuu ka gudbay, xishoodkiisiina wuxuu u rogay deganaan iyo kalsooni. Ugu dambeyn, caqabadihii caruurnimadiisa waxay noqdeen saldhiggii uu ka dhisay guushii weyneed ee uu ka gaaray kubadda cagta. Halkii uu ka bilaabay safarkiisa kubadda cagta, Karim Benzema wuxuu qaaday tallaabadiisii ugu horeysay ee kubadda cagta isaga oo jiray 8 sano oo kaliya. Wuxuu ku biiray kooxda xaafadiisa ee Brontryline SC oo ahayd koox yar balse noqotay halkii hibadiisu ka iftiintay. Tababarayaashii la soo shaqeeyay waxay si degdeg ah u ogaadeen in Karim Benzema aanu ahayn ciyaaryahan caadi ah. Wuxuu lahaa hibo dabiici ah oo si cad uga sooceysay carruurtii kale ee isku da'da ahaayeen. Waxa uu si kalsooni leh ugu ciyaari jiray labada lugood, isagoo lahaa xakameyn kubadeed oo heer sare ah, aragti weerar oo fiican, iyo awood uu si degdeg ah u akhrisan karo ciyaarta. Astaamahaas ayaa ka dhigay ciyaaryahan ay dadka oo dhan indhaha ku hayaan. Maalmihii ugu horeeyay ee uu garoomada Brontryline SC ka ciyaarayay, waxaa durba muuqanaysay in wiilkan yar uu leeyahay mustaqbal ifaya. Dad badan ayaa rumaysnaa in hibadiisu ay maalin u horseedi doonto garoomada ugu waaweyn ee dunida, waxaana waqtigu caddeeyay in riyadaasi ay noqotay xaqiiqo. Kulankii bedelay mustaqbalkiisa. Mararka qaar hal ciyaar oo kaliya ayaa bedeli karta nolosha ciyaaryahan. Taasina waa wixii ku dhacay Karim Benzema isagoo weli ah wiil yar. Sanadkii 1996, kooxda uu u ciyaarayay ee Brontryline SC ayaa wajahday kooxda da'da yar ee Olympique Lyonnais. Inkasta oo ay ahayd ciyaar caruur, haddana waxay noqotay maalintii albaabada mustaqbalkiisa la furay. Karim Benzema wuxuu ciyaartaas ka dhaliyay 2 gool, isagoo soo bandhigay hibo iyo kalsooni ka sareysa da'diisa. Dhaqdhaqaaqiisa, xakameynta kubaddiisa, iyo fahamka uu u lahaa ciyaarta ayaa si weyn u soo jiidatay indhaha indhayaashii Lyon ee garoonka joogay. Ma aysan la dhicin oo kaliya goolashii uu dhaliyay, waxa ay arkeen ciyaaryahan yar oo leh maskax kubadeed oo bisil, aragti weerar oo aad u wanaagsan, iyo hibo tilmaamaysay inuu mustaqbal weyn leeyahay. Maalintaas waxay noqotay barta uu ka bilaabmay safarka Karim Benzema ee ku wajahan heerka ugu sareeya ee kubadda cagta. Waxyar kadib, Olympique Lyonnais waxay go'aansatay inay si rasmi ah ugu yeerto akadeemiyadeeda, halkaas oo uu ka bilaabay cutubkii ugu muhiimsanaa ee noloshiisa ciyaareed. Riyadii oo rumowday, ku biiristii akadeemiyadda Olympique Lyonnais kadib markii uu si cajiib ah uga dhex muuqday kooxdii Brontryline SC. Karim Benzema wuxuu helay fursaddii ugu weyneed ee caruurnimadiisa. Isagoo u dhexeeyay 9 ilaa 10 sano jir, wuxuu si rasmi ah ugu biiray akadeemiyadda kooxda Olympique Lyonnais oo ka mid ahayd akadeemiyaddii ugu tayada badnayd ee soo saarta ciyaartoyda da'da yar ee Faransiiska. Ku biirista Lyon waxay ahayd tallaabo bedeshay noloshiisa. Halkaas wuxuu ka helay tababar xirfadeed, nidaam casri ah oo horumariyay hibadiisa, iyo daryeel dhinaca nafaqada iyo jirdhiska ah, kuwaas oo ka caawiyay inuu si joogto ah u kobco. Bilowgii, Karim Benzema wuxuu ahaa wiil degan oo xishood badan. Ma uusan ahayn qof si fudud ula qabsan jiray saaxiibadiisa cusub, balse wuxuu rumaysnaa in ficiladu ay ka muhiimsan yihiin hadallada. Wax badan ma aysan qaadan in qof walba uu dareemo hibadiisa. Wuxuu bilaabay inuu si joogto ah goolal uga dhaliyo kooxaha da'da kala duwan, isagoo soo bandhigay xirfad, deganaan, iyo aqli kubadeed oo ka yaabiyay tababarayaashiisa. Maalinba maalinta ka dambeysa, Benzema wuxuu caddaynayay inuusan ahayn ciyaaryahan caadi ah. Wuxuu ahaa wiil yar oo si tartiib tartiib ah uga sii socday waddadii uu ku noqon lahaa mid ka mid ah weeraryahanada ugu waaweyn kubadda cagta adduunka. Safarkii ka bilowday kubad ururinta garoonka. Intii uu ku jiray akadeemiyadda Olympique Lyonnais, Karim Benzema ma ahayn oo kaliya ciyaaryahan da'yar oo tababar qaata. Wuxuu sidoo kale mararka qaar ka shaqayn jiray ball boy, isagoo kubadaha soo qabta intii ay socdeen ciyaaraha kooxda koowaad ee Lyon
ee garoonka Stade de Gerland. Inkastoo ay ahayd shaqo yar, haddana Karim wuxuu u arkayay fursad weyn oo uu wax ku barto. Wuxuu si dhow ula socon jiray ciyaartoydii waaweynaa ee Lyon sida Junin iyo Michael Essien, isagoo indhihiisa ku arkayay xirfadooda, dadaalkooda iyo sida ay ula tacaalaan cadaadiska kulamada waaweyn. Markasta oo uu taagnaado hareeraha garoonka, ma uusan arkin oo kaliya ciyaar kubadda cagta ah, wuxuu arkayay riyadiisa oo hortiisa ka socota. Wuxuu islahaa, maalin uun aniga halkan ka ciyaari doona, waxaana noqon doonaa xidig ay malaayiin qof u sacbiyaan. Riyadaas ma ahayn mid uu hadal ku koobay, waxay noqotay himilo uu maalin kasta u shaqeeyo. Dadaalkii, dulqaadkii iyo kalsoonidii uu naftiisa ku qabay ayaa ugu dambeyn rumowday, waxaana wiilkii kubadaha soo qaban jiray uu noqday xidig ay kumanaan taageerayaal ahi u sacbiyaan isla garoonkaas. Dhiirigelintii uu ka helay Ronaldo Nazario caruurnimadiisii, Karim Benzema wuxuu lahaa hal ciyaaryahan oo uu si gaar ah u jeclaa, una arkayay tusaalaha ugu weyn ee uu ku dayan karo. Halyeygaas wuxuu ahaa weeraryahankii reer Brazil ee dunida ka yaabsaday, Ronaldo Nazario oo loo yaqaanay Phenomena. Markasta oo uu helo waqti firaaqo ah, Karim Benzema wuxuu daawan jiray muuqaalada Ronaldo Phenomeno. Wuxuu si taxadir leh u baran jiray dhaqdhaqaaqiisa, xawaaraha uu kubadda ula ordo, xirfadiisa uu ku dhaafo daafacyada, iyo deganaanta uu ku dhameeyo fursadaha goolasha. Laakiin Karim Benzema kuma ekeen inuu ku daydo oo kaliya gool dhalinta. Wuxuu sidoo kale bartay sida weeraryahan weyn uu kooxda uga faa'iideeyo ciyaar wadajir ah. Wuxuu fahmay muhiimadda ay leedahay isku xirka saaxiibada, abuurista fursadaha iyo ka qayb qaadashada dhismaha weerarka. Saameynta Ronaldo Nazario waxay si weyn uga muuqatay qaab ciyaareedkii Benzema. Taasi waxay ka caawisay inuu noqdo weeraryahan dhammaystiran, mid aan caan ku ahayn oo kaliya dhalinta goolasha, balse sidoo kale lagu ammaano aqligiisa kubadeed, caawinta saaxiibadiisa iyo hogaaminta weerarka. Riyadii uu ku bilaabay daawashada halyeygiisa ayaa ugu dambeyn isu beddeshay xaqiiqo, waxaana Karim Benzema isaguna noqday halyey ay jiilal cusub ku daydaan. Riyadii oo rumowday ku biiristii kooxda koowaad ee Lyon markii uu ahaa 17 jir, Karim Benzema wuxuu gaaray riyadii uu sanado badan u soo halgamayay. Waxaa loo dalacsiiyay kooxda koowaad ee Olympique Lyonnais, halkaas oo uu garab istaagay ciyaartooy waaweyn oo khibrad iyo magac ku lahaa kubadda cagta Faransiiska. Bilowgii ma ahayn mid sahlan. Karim Benzema wuxuu ahaa wiil degan oo xishood badan, waxaana qaar ka mid ah ciyaartoydii waaweynaa ay u arkayeen inuu yahay da'yar weli wax badan baranaya. Qolka labiska dhexdiisa waxaa ka jiray kaftan iyo tijaabooyin lagu eegayo geesnimadiisa, laakiin gudaha wiilkaas xasiloon waxaa ku jiray kalsooni weyn. Waxaa la sheegaa in Benzema uu si geesnimo leh ugu jawaabay, isagoo muujiyay inuusan halkaas u imaan daawasho, balse uu u yimid inuu booskiisa kasbado oo uu noqdo ciyaaryahan muhiim u ah kooxda. Hadalkaas wuxuu ka turjumayay hal shay oo kaliya, hami aan xad lahayn. Inkastoo uu yaraa da' ahaan, haddana qalbigiisa wuxuu hore u rumaysnaa inuu gaari karo heerarka ugu sareeya. Waqtigu wuxuu caddeeyay in kalsoonidaasi aysan ahayn hadal oo kaliya. Dhowr sano gudahood, Karim Benzema wuxuu noqday mid ka mid ah xidigihii ugu waaweynaa ee Olympique Lyonnais, isagoo magaciisa ku qoray taariikhda kooxda ka hor inta uusan u dhaqaaqin masraxa ugu weyn ee kubadda cagta Yurub. Guushii ugu horeysay ee albaabada xidignimada u furtay kadib caruurnimadii adkeyd iyo sanadihii uu ku soo qaatay horumarinta hibadiisa. Karim Benzema wuxuu si degdeg ah isu caddeeyay inuu yahay mid ka mid ah weeraryahanadii ugu hibada badnaa ee Faransiiska. Isagoo weli da'yar ah, wuxuu door weyn ka qaatay guulihii Olympique Lyonnais, isagoo kooxda ka caawiyay inay ku guuleysato horyaalo xiriir ah oo Ligue 1 ah. Xilli ciyaareedkii 2007-2008, Benzema wuxuu noqday gooldhalihii ugu sareeyay horyaalka Faransiiska, taas oo si rasmi ah u xaqiijisay inuu ka mid noqday xidigaha ugu waaweyn Yurub. Bandhigyadiisii cajiibka ahaa waxay soo jiiteen indhaha kooxo badan
oo waaweyn. Ugu dambeyn, sanadkii 2009, kooxda Real Madrid ayaa la soo wareegtay, waxaana halkaas ka bilowday cutubkii ugu weynaa ee xirfadiisa. Wiilkii yaraa ee ka soo baxay xaafadda Bronterolon wuxuu isu bedelay halyeey dunidu wada taqaan. Wuxuu ku guuleystay koobab badan oo heer caalami ah, wuxuu noqday hogaamiye garoonka dhexdiisa ah. Ugu dambeynna wuxuu ku guuleystay abaalmarinta ugu sharafta badan ee ciyaaryahanka kubadda cagta ugu fiican, Ballon d'Or, sanadkii 2022. Sheekada Karim Benzema waxay ina baraysaa cashar muhiim ah. Duruufaha adag ma go'aamiyaan halka uu qofku ku dambeynayo. Haddii aad leedahay riyo, dadaal joogto ah iyo dulqaad, caqabad kasta waxay isu bedeli kartaa jaranjaro ku horseeda guul. Haddaba saaxiibayaal, waxaa inta inoogu eg sheekada Karim Benzema. Intaan ku kulmi doonno sheeko tan la mid ah, waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.